nabadgelyo korkiina ha ahaato ku soo dhawaada barashada xisaabta magacaygu waa Shine Gestir waxaan caawa kuu sidaa daawade oo aan video gaaban ku baranaynaa types and names of triangles noocyada iyo magacyada saddexagalada. Triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles. Saddexagal waa geesoole leh 3 dhinac iyo 3 xaglood. The 3 angles always add to 180 degree. Saddexda xagal markii la isku wada daro waxay noqdaan cabirkoodu 180 degree. Saddexagal walba oo ka soo horbaxa oo aragtid waa inay markii la isku wada daro xaglahooda ay noqdaan 180 degree. intaasi waa muhiim inaad xasuusan kartid mar walba. waxaa jira marka laba qaab oo loo kala saaro ama loo habeeyo saddexagalada iyadoo loo fiirinayo dhinacyadooda iyo xaglahooda. bal aan ku horeyno inagoo fiirinayna dhinacyadooda. Equilateral triangle saddexagal dhinacyo isla eg ah ayaa la yiraahdaa saddexagalkan. Saddexagalkan wuxuu leeyahay 3 dhinac oo isla eg 3 equal sides. wuxuu kaloo leeyahay saddexagalkan 3 xaglood oo isla eg xagal kastana ay tahay mar walba 60 degree. 3 equal angles always 60 degree. waxaa la yiraahdaa saddexagalkan markaas equilateral triangle. wuxuu leeyahay baan dhahnay 3 dhinac oo isla eg iyo 3 xaglood oo isla eg oo mid walba ay tahay 60 degree. markii 60 lagu daro 60 waa 120, 60 loo geeyana waxa weeyaan 180. waa inay saddexagal walba markii xaglihiisa la isku daro inay noqdaan 180 degree. intaas waa muhiim. aan u gudubno saddexagalka labaad. saddexagalkan waxaa la yiraahdaa isosceles triangle luqadda Ingiriiska. af Soomaalina waxaa lagu yiraahdaa saddexagal labaale ah. wuxuu leeyahay 2 equal sides laba dhinac oo isla eg. waa labadan dhinac kan iyo kan way isla egyihiin waa isku cabir. 2 equal angles laba xaglood oo isla eg. wuxuu sidoo kale leeyahay laba xaglood oo isku cabir ah. mar walba xaglahaas waa isku cabir. markaas dhinacan waa keligii wuu ka yaryahay labadan dhinac. xagashanna way ka yar tahay labadan xaglood. kan waxaa la yiraahdaa isosceles triangle. af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa saddexagal labaale ah. aan u gudubno shaxanka saddexaad. shaxankan waxaa la yiraahdaa scalene triangle. af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa saddexagal ismaale ee ka ah islama eka. no equal sides dhinacyadu islama eka. no equal angles xagluhuna islama eka. xagashan lama eka. tan lama eka. dhinacan lama eka. dhinacan lama eka. saddexagalka noocana markuu ka soo horbaxo waxaa la yiraahdaa scalene triangle luqadda Ingiriiska. af Soomaalina waxaa lagu yiraahdaa saddexagal ismaale ee ka ah. marka waxaan ku xasuusinayaa xagashan iyo xagashan marka la isku darana waxaa qasab ah inuu noqdo 180 degree. intaas waa muhiim mar labaadna waan ku xasuusinayaa. aan u gudubno markii loo eegayo xaglahooda. saddexagalka la yiraahdo acute triangle. af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa saddexagal fiiqan. saddexagal fiiqan all angles are less than 90 degree. xaglihiisu dhammaantood 90 degree way ka yar yihiin. xaglihiisu dhammaantood
90 degree way ka yar yihiin wax 90 degree buuxinaya kuma jirto tan 90 degree ma noqon karto tan 90 degree ma noqon karto tan 90 degree ma noqon karto laakiin waa inay markii la isku wadaro ay noqoto 180 waxaa la yiraahdaa shaxankan saddex xagal fiiqan af Soomaali Englishna waxaa lagu yiraahdaa acute triangle aanu gudubno saddex xagalka inoogu xiga saddex xagalkan magaciisa waxaa la yiraahdaa right triangle saddex xagal quman wuxuu leeyahay xagal quman oo ah cabirkeedu 90 degree kaasna waxa weeyaan waa ka ugu caansanee waxaa la yiraahdaa right triangle aan u gudubno ka ugu dambeeya waxaa la yiraahdaa obtuse triangle saddex xagal leh xagal furan xagashiisan waa xagal furan oo waxay ka weyn tahay 90 degree waxay ka weyn tahay 90 degree intaasi waxa weeyaan hordhaca saddex xagal wuxuu yahay waxaan videogan ku xigaan ku qaadan doonaa mid walba iyo sida loo soo saaro bedkooda areagooda iyo perimeterkooda iyo wareegooda inta aan daawaday ku kulmi doono videogan video la mid ah waxaan idin si dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh